shirkan jiraa'id ay maanta magaalada Muqdisho ku wada qabteen safiirka dowladda Shiinaha iyo dhigiisa safiirka Soomaaliya u qaabilsan dalkaasi Shiinaha ayaa waxay ka hadleen xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku sugan waddanka Shiinaha. safiirka dowladda Shiinaha u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Shin Jane ayaa sheegay in dowladdiisu ay la tacaalayso sidii loo baabi'in lahaa cudurkan coronavirus-ka ee dhawaan ka dilaacay waddanka Shiinaha. shirkan jiraa'id ayuu safiirka dowladda Shiinaha ku sheegay inaysan jirin dad Soomaaliyeed oo gaaray cudurkan coronavirus-ka isla markaana ay dowladda Shiinaha ay ka warqabto badqabka Soomaalida ku sugan gobolada uu cudurkan ku badan yahay ee ku yaala waddankaasi Shiinaha. Just now, foreigners are safe in China. Chinese government guarantees life, safety and healthy for citizens in China. ma jiraan muwaadiniin u dhalatay wadamo kale oo la dhiban cudurkan. dowladda Shiinaha waxay kafaalo qaadaysaa nolosha dadka ajaanibta ah ee hadda ku nool dalka Shiinaha oo ay ku jiraan walaalaheena Soomaaliya haddii ay ahaan lahaayeen caafimaadkooda, daryeelkooda iyo badqabkooda. sida aad ka warqabtaan sanadihii u dambeeyay Soomaali badan ayaa wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala dalka Shiinaha, gaar ahaan jaamacadda Wuhan ee ku taala gobolka uu ka soo bilowday cudurka coronavirus. dhanka kale safiirka dowladda Soomaaliya u qaabilsan dalka Shiinaha Cawaale Kulane ayaa dhankiisa ka hadlay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi iyo sida uu noqon doono isu socodka iyo ganacsiga labada dowladood. xaaladda Soomaalida ku sugan China qaasatan Wuhan, Hubei kulligood waa nabad qabaan alxamdulillah, inkastoo ay joogaan magaaladii ay cudurka ka bilaabatay. dowladda Chinese kan halkaan aan isla joogno waxaan ka wada shaqeynaynaa sidii aan u hubin lahayn mar walba caafimaadkooda, horumarkooda. caqabadda waxa waaye meesha cudurka ka dilaacay epicenterka Wuhan oo kale haddii dad laga soo daabuleynayo wadamadii xataa qaaday dadka ama Mareykan ha ahaadaan kulligood dadkii maanta waxay ku jiraan xerooyin, waxay ku jiraan camps, waxay ku jiraan jasiirado. Australia wadan weyna jasiirada ku jiraan dadkii qaadeen 600 qof ay qaadeen. Mareykanka Ingiriiska dadkii qaadeen xerooyin ciidan ay ku jiraan. Faransiiska marka waxa loo baahan yahay dadka laga soo wada meesha cudurku ka dilaacay in ugu yaraan 20 maalmood lagu karantiili karo, la heli karo goob lagu karantiilo oo ay lagu daryeeli karo, lagu ogaan karo xataa ayagan caafimaadkooda inuu fiican yahay. marka annaga xaqiiqada taal waxa way ma hayno space kaaseeto, ma hayno fursadii caafimaadka aan ku qaban lahayn. marka marna ma hayn dhalinyarada la daryeeli waay, laakiin tanna macnaheed ma inaan ka gaabino oo aan dhahnay ma la soo wadaa. marka haddaan heli karno sida wadamada aad tilmaanto kale oo helay dalal kale ka caawiyo waqtigaas karantiilka in loo qaado waa ku maqannahay. madaxda qarankana runtii way wada raadinayaan. ganacsatada yani oo Soomaaliya oo xagga joogto waana tagaan waana ka soo noqdaan, diblomaasiyiinta waa tagaan waa ka soo noqdeen. meelaha karantiilka dadka tagay ilaa hadeertaan isku socodkaaseeta waa jira oo maxaa la lahaa geediya. laakiin dabcan qofkii immigrationka halka dal ka soo dego waa ogaanaynaa qofkii travel historygiisa ama meeshuu ka yimid baasaboorkiisa la fiirin karaa. ardaydana waa noo wada register garaysan yihiin. Maxamed Ibrahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.